xiisadii u dhaxaysay dowladda Puntland iyo ciidanka danab ee mucaaradka ayaa la xaliyay iyadoona la cadeeyay in Jarnaal Jimcaale uu imaan karo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland sidoo kalena waxa lagu guuleystay in heshiis la dhex dhigo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo waliba Jarnaal Jimcaale guddiga odayaasha iyo madaxweyne Deni ayaa isla qaatay nabadda iyo waliba isfahan labada dhinac ah kuwaas oo u dhaxeeya dowladda iyo ciidanka danab kulankan oo ay qayb ka hayeen madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Faroole wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Xirsi Qarjab wasiirka caafimaadka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Faroole iyo waliba taliyaha booliska ciidanka booliska Puntland Muumin Cabdishire ayaa waxa looga hadlay ammaanka magaalada Garowe ee caasimadda Puntland xaaladda Puntland iyo Soomaaliya iyadoo guddiga ay soo jeediyeen in magaalada Garowe ee caasimadda Puntland laga saaro ciidamada fara badan ee dawladdu ay keentay kuwaasi oo aan la garanayn waxyaabaha ay qabanayaan waa sida ay sheegeen waxaana la tilmaamay in ciidamada laga qaado kontaroolada sidoo kalena waxa la isla qaatay nabadda Senator Cabdiraxmaan Faroole madaxweynihii hore ee Puntland ayaa kulanka ka hadlay waxaana sheegay inuu guul ku soo dhamaaday shirkii maalmihii la soo dhaafay u socday waxgaradka gobolka Nugaal ee looga hadlayay xiisadda Jarnaal Jimcaale iyo waliba dowladda isla markaasina ay ku guuleysteen in labada dhinac ay dhex dhigaan nabad inkastoo aan la faahfaahin qodobada ka soo baxay shirka haddana warar aan helin ayaa waxay sheegayaan in lagu heshiiyay inay wada shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada uu hogaamiyo Jarnaal Jimcaale Jaamac Takar oo la sheegay inuu noqday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee kutay afraad ee Puntland intaas horta waa hordhacay annagu haddii ilaahay idmo waxaanu qaadanaynaa saddexdii qodob oo ay la yimaadeen qoladii 13 gaalmood tagay baan qaadanaynaa as a base dowladdana waxaan faraynaa magaciisa halka meesha aan u wadno ay qaybtooda ka soo qaatay tafaasiil ka bixin maayo hoos baan isugu sheegay magala halka qaybtooda ka soo qaatay wixii dhammaan ay soo qaadeen iyagaa laga rabaa nimankii soo qaadaa laga rabaa haddeer ma kasii howlgala dhammaanadaa soo qaadeen inaga waxbaa ka qaada inaga waa idinkaan ammaanadda idinku dabayna idinkaa idinka sugayna ammaanadda waxaa soo kala qaadeen meesha hadda ka caddayn maayo laakiin waxaan u sheegaynaa ummadda reer Puntland iyo shacabkeena iyo Soomaaliya oo dhan meeshaan nabad baa lagu degan yahay nabad baan ka rabnaa ciddii xumaan soo wada hadda habaarna waa ka raaco xaq habaar waa u leeyahay wixii bala soo wada isaga Allah ku soo haddaba wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaysa kulankaas ayaa wuxuu tilmaamayaa in madaxweyne Deni iyo waliba Jarnaal Jimcaale ay ku kulmi doonaan Garowe gaar ahaan madaxtooyada iyaguna ka wada hadli doona nabadda caasimadda iyo waliba sida ay wada shaqeyn lahaayeen Senator Cabdiraxmaan Faroole ayaa si rasmi u cadeeyay in marnaba aysan macquul ahayn in Garowe xabad laga rido ayna ka shaqeynayaan ka hortagga xabadda miiskooda halkan lagu xalinayo wax kasta oo yimaada isla markaasina ay ku guuleysteen odayaasha dhaqanka iyo waliba siyaasiyiinta Puntland